أنا مقعي كبلاوي عدنان محمد آدم كم عدار مقصة وحن جعل الله ما دام لو كل عطن لكود أن سوي أن دورشة قف عدا إني أعتمد لو عدين أيو دمان دورة دمان تيت قف عد ستوصل لو عدين مدحض ذلك قاس مدحوينه. بسم الله الرحمن الرحيم. حماشة عن ربعنا فكرة كديبتو عضارورين أو الربيع للسماء برامج كدورشة عدك يقفك يعدك وحال ربعين لوكال قاضو لبغ نظام أو برلمانتيريا iyo mid presidential ani waxa isleeyahay midka presidentialka oo dadka ay madaxweynimada dooranayaan waxa ka haboon oo Soomaaliya uga haboon midka parliamentary-ga sida Ingiriiska kale marka tusaale la soo qaato Ingiriiska waxay sameeyaan waxay doortaan xildhibaanahaas waxay soo saaraan ra'iisul wasaare hadhow hadii uu fulin waayo howlihii loogu talagalay ayaga ka bedela meesha waxaan aad u jeclaan lahaa in shacabku u codeeyaan madaxweynaha hadii la heli karo sida wadankeena haduu doorasho ka dhacay doorashooyinka soo socda ani waxa codeyn lahaa in oo baarlamaan la soo doorto kadib madaxweynaha uu noo doorto bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Nuur Cabdiraxmaan Nuur waxa kamid ahay dadka ku nool magaalada caasimadda ah Muqdisho markan rayaantida ka dhiibto doorashada Soomaaliya ee sanadka 2020 sida ay noqonayso faraanti markan fiirno horto yaa wanaagsan in madaxweynuhu ay shacab doortaan in xilmaano ay doortaan runtii qofka aqliga leh ee aqoonta loo kala dareemi kara mid wanaagsan iyo mid xun ani ahaan waxay la tahay marka horta inuu wanaagsan lahaa in madaxweynuhu shacabku ka yimaado shacabku ay soo doortaan laakiin marka la fiiriyo waaqiciga maanta taagan iyo xaalka dalku uu marayo ma aha mid suurtagelaysa in doorasho one man one vote wadanka ka dhacdo bismillaah anigoo yahay magacayga Cabdifataax Cabdullaahi Cilmi waxaan jeclaan lahaa doorashada dhacaysa 2020ka in loo codeeyo madaxweynaha waxaan jeclaan lahaa maadaama ay tahay aniga doorasho oo maaragtay Soomaaliya ay leedahay in ay noqoto doorasho shacab maadaama uu yahay madaxweynuhu oo matalo sida badan Soomaalida dhamaanteed iyo shacabka